nebi yuunis calayhi salaam waxa uu caanka ku yahay nebiga kitaabka qur'aanka kariimkuna waxa uu sheegayaa in qoom walba marka ay nebigoodii dhagaysan waayeen in la halaagay ilaa qoomkii yuunis calayhi salaam. waxa uu ku dhashtay yuunis dhulka ciraaq, gaar ahaan magaalada ninaawa loo yaqaano. aabbihiisu waxa uu dhintay inta uu caloosha ku jiray. nebi yuunis calayhi salaamna dadka halkaasi ku noolaa ee reer naynama ayaa loo diray. sida nebiyadii hore ay ahaayeenna, yuunis calayhi salaam qoomkiisii ayuu bilaabay in dacwada iyo tawxiidku ugu yeero. waxa uuna caanka ku ahaa runta, xifdinta ammaanada iyo dadka wanaag inuu u sameeyo. balse markii uu nebi noqday kadib, qoomkii way ka jeesteen, waxa ayna bilaabeen in ay beeniyaan yuunis calayhi salaam. kamana uu caajisin nebi yuunis calayhi salaam sidii nebiyadii hore oo kale. qoomkiisii waxa uu isku dayay inuu u caqli celiyo, u wacdiyey ilaa ay ka qiraan jiritaanka alle oo keliya. waxa uuna u sheegay in horaantoodii qooman badan oo iyaga oo kale ah in la halaagay, haddii iyaguna ay ka fiirsan waayeen sidii kuwii hore oo kale inay ku dhici karto. balse dadkani ma aysan ahayn dad qalbigoodii uu jilicsan yahay. nebi yuunis calayhi salaam markii uu ku daalay iyaguna ay wax maqli waayeen, dhexdoodii waa uu isaga dhex baxay. keligii ayaa magaalada bannaankeedii iska imaaday. markaas ayaa alle waxa uu ku yidhi yuunis calayhi salaam, waad ku degdegtay in qoomkaadii dhexdood aad ka soo dhex baxdo. ku laaba qoomkaadii oo u wacdi ilaa muddo 40 cishaa. haddii ay ku dhagaysan waayaan, kadib waa la ciqaabi doonaa. nebi yuunis calayhi salaam qoomkiisii ayuu ku soo laabtay, sidii ayuuna dacwada iyo tawxiidku ugu yeerayay. kolkanise waxa ay bilaabeen in ay ku jeesjeesaan oo ay ku dhahaan, haddii aad cadaab inoogu goodinayso, waxba ha la soo daahin yuunisow, ee hadda inoo keen cadaabta aad sheegayso. jeesjooskoodii ayay wateen. nebi yuunisna muddo 40 maalin ah ayuu u adkaysanayay jeesjooskoodii. 37 marka ay gaartay maalmaha wacdinta, waxna ay dhagaysan waayeen, waxa uu qoomkii uu ku dhahay, 3 maalin ayaa idin hartay. haddii alle aad rumayn weysaan, adinka ayay idin taallaa, dhammaantiinii waa la idin ciqaabi doonaa. dhexdoodiina yuunis calayhi salaam waa uu ka soo dhex baxay. maalintii koowaad jebiga sidiisii hore ayuu iska ahaa, wax welwalah ma jirin. maalintii labaad qorax dhicigeedii, yacni maalintii saddexaad inta aan la gaarinba, midabka cirka ayaa isbedelay. daruuro waaweyn oo qofkii arkaba uu ka argagaxayo ayaa cirka ka soo muuqday. qoomkii oo awalba dareen iyo natiijo cadaab filanayay, marka ay daruurahani arkeen, bannaanka ayay dhammaantoodii u soo wada baxeen, iyaga oo aad u naxsan oona garan lah waxa ay sameeyaan. markaas ayaa dadkii waaweynaa waxa ay dhaheen, waxaa xaqiiqa wixii yuunis uu inoo sheegay inay inagu imaadeen. waa inaan alle hadda u toobad keennaa si aanay ciqaabtani inoogu dhicin. maalintii saddexaad ee ciqaabta, inta aanan la gaarin ka horba, dhammaantoodii way wada islaameen. allana waxa uu leeyahay, haddii ay jirta magaalo dadkii ku noolaa iimaankoodii uu anfacay, waa qoomka yuunis calayhi salaam. marka ay alle rumeeyeen ciqaabta ka hor, kashafnaa canhum alcadaaba alqizi fi lxayaati addunya wamatacnaahum ilaa xiin. marka ay arkeen iimaankoodii kadib in daruuraha iyo jebigiisii sidoodii inuu ku soo noqday welwelkii hay oo dhan, waa uu ka baxay. farxad darteedana laabaha ayay isgeliyeen. kadibna magaalada waxa ay bilaabeen in yuunis calayhi salaam ay ka raadiyaan, iyaga oo doonay inay kaga farxiyaan inay alle u soo noqdeen. yuunis calayhi salaamna waa qof aanan waxba ka ogayn waxa qoomkiisii ku dhacay in la halaagay ayuu mooday. magaalada oo dhan waa uu isaga soo tagay. meel kasta way ka raadiyeen qoomkii, nasiib daro ma aysan helin. nebi yuunis calayhi salaam waxaa la sheegaa magaalada kadib inuu dib ugu noqday, balse uusan gelin. keliya waxa uu doonayay inuu ogaado xaaladda dadka ay ku sugan yihiin, haddii ciqaabta ay ku soo duuldegtay ama in kale. markii uu arkay in ciqaabta raxmad alle isku beddeshay, waxa uu ka baqay in kufrigoodii uu u siyaado, kadibna ay dhahaan, maalintaad ina balamisay yuunisow waa la gaaray, wax ciqaab ahna naguma dhicin, inaguna sideennii ayaan u nool lahay.
cabsidani uu ka qabay in kufrigoodii uu u siyaada darteeda mana oga qoomkiisii in ay rumeeyeen dib ayuu isaga noqday isaga oo si faahfaahsan aanan u ogeyn qoomka gadaashiisii waxa ay sameeyeen. kadibna xeebta ayuu tagay yoonis calayhi salaam. qoom safar ah oo dooni saaran ama markab ayuu arkay. gacanta ayuu u haatiyey markay istaageenna waxa uu ka codsaday in doonidoodii uu raaco. way soo dhoweeyeen qoomkii iyaga oo aanan aqoon yoonis calayhi salaam. doontii marka ay dhaqaaqdayba badda ayaa kacday. dadka oo dhanna mawjado hirar waaweyn oo halis ah ayay bilaabeen in wejiga ay saaraan. markaas ayaa waxa ay bilaabeen dadka inay isbaasaystaan. waxa ayna dhaheen waxaa macquul ah inuu inagu dhex jiro qof bacaw ah ama qof amar la'aan sayidkiisii ka soo dhuuntay. waxa ayna caado u lahaayeen dadkani in qorituur ay sameeyaan. waxa ayna dhaheen doonida qofkaasi ayay ka dhaqaaqi la'dahay. waa inaan qorituur sameynaa. qofka qoriga uu ku soo baxo waa qofka doonta dhibka ku haya. doonida ayaana qofka laga tuuri doonaa. haddaba sida qof walba ha ula socdo. qorituurkii ayay sameeyeen. yoonis ibnu matta ayay ku soo baxday. dadkii oo dhan inta ay isfiirfiiriyeen nebigii way ka xishoodeen. waxa ayna dhaheen kani waa qof wanaagsan. ma dhici karto in isaga uu yahay. umana shabaha qof addoona. waa in mar kale qorituurkaan ku celinaa. mar kale ayay ku celiyeen. waxaa qoriga uu ku soo baxay yoonis calayhi salaam. way u cuntayn weysay kolkanise mar saddexaad ayay tuureen. haddana yoonis calayhi salaam ayuu qoriga ku soo baxay. waxa uu fahmay yoonis calayhi salaam in tani ay tahay imtixaan weyn oo xag alle uga yimid. markaas ayaa dadkii doonta inta ay nebigii soo qabteen ayay badda dhexdeedii xilli habeen oo mugdi ah mawjaduhuna ay kacsan yihiin ayay badda dhexdeedii ku dhex tuureen. isla markiiba yoonis calayhi salaam waxaa laqay xayawaanka nebiga. mugdi oo badda ahayd waxaa ugu darsamay xayawaan calooshiisii oo mugdi ah inuu ku dhex nagaado. nebi yoonis calayhi salaam isaga oo nebiga calooshiisii ku sugan ayuu bilaabay in halkaa uu ku tasbiixsado. kitaabka qur'aanka kariimka waxa uu leeyahay suuradda ambiyaa aayadda 87 xusuusada nuun oo loola jeedo nebi yuunis. waxa uu qoomkiisii uu ka soo tagay isaga oo aad u xanaaqsan oo dhibsaday jeesjeeska iyo madax adeegoodii. waxa uuna u maleeyey naftiisii inaanan marnaba ciriiri aanan gelin doonin. fanaadaa fii dulumaati mugdiga dhexdiisii ayuu ka soo dhawaaqay isaga oo leh laa ilaaha ilaa anta subxaanaka innii kuntu min addaalimiin. marka uu sidani yoonis calayhi salaam uu dhahay waxaa samada sare ducadani ka maqlay malaa'igaha. waxa ayna dhaheen eebow codkani waa mid aan naqaano. meel aanan wanaagsanayn ayuu addoonkaadii ka soo qaylin. markaas ayaa alle waxa uu dhahay fastajabnaa lahu wanajaynaahu min alghammi wakadalika nunji lmu'miniin. ducadiisii inta aan aqbalnay ayaa yoonis murug oo dhan aan ka saarnay. sidaasi ayaana mu'miniinta u badbaadinaa. culimmadu waxa ay sheegaan ducadaasi kadib nebiga calooshii waa uu ku hayn waayey yoonis calayhi salaam. meel xeeb oo cidlaah oo keligiisii uu ku yahay ayuu nebigii ku soo tufay. halkaasi ayaana yoonis calayhi salaam oo baaba'ay aadna u gaajeysan ayaa xeebta uu ku soo dhacay. halkaasi ayuuna alle uu ku waraabinay ilaa muddo. ugu dambaynna waxaa la faray in qoomkiisii uu ku noqdo. sidii ayuuna sameeyey isaga oo meel lexe socda ayaa waxaa ka hor imaaday nin ay raaca. markaas ayaa waxa uu weydiiyey arrinta qoomkiisii. waxa uuna u sheegay ninka ay raacaha wixii dhacay iyo sida ay qoomkiisii ay u baqeen. kadibna dhammaantoodii alle ay u wada rumeeyeen. waxa uuna u sii raaciyey in qoomka meel walba ay ka raadinayeen yoonis calayhi salaam. haddana ay sugayeen qof xaqa iyo baadilka u kala sheega. nebi yoonis calayhi salaam marka ay dadku wada maqleen in magaalada uu soo galay si dhaqsa ah isaga oo tukanay ayay u wada imaadeen dhammaantoodii. marka uu salaada dhameeyey ayuu qof walba raaligelin uu ka bixiyey inta dacwada uu waday yoonis calayhi salaam wixii jeesjees ahaa iyo in aysan dhegaysan. waxa uuna halkaa uu ka bilaabay yoonis calayhi salaam in dadku u wacdiyo diinta uu baro. allana waxa uu leeyahay marka ay sidaa ilaahay u rumeeyeen famatacnaahum ilaa xiin. raaxa ayayna ilaa muddo qoomkii yoonis markii alle ay rumeeyeen ay dhex galeen. ugu dambayn yoonis isaga oo qoomkiisii ku dhex jiro oo 83 sano jir ah ayaa magaalada naynama dhexdeedii uu ku dhex dhintay. nebi ilyaas calayhi salaam waxa uu ka mid yahay nebiyada reer bani israa'iil loo diray. waxa uuna dadku uu beri jiray kitaabka towraadka ahaa. xilligaasi reer bani israa'iil qabiilooyin kala duwan hadba qabiil walba sanam u gaar ah ee uu caabudo ayuu lahaa.
nebi ilyaas sida kitaabka qur'aanka uu sheegayo qoomkiisii waxa ay haysteen sanam bacla loo yaqaanay markuu ugu dhawaaqay kelimada tawxiidka in alle ay rumeeyaan isaguna nebi ahaan ay u raacaan waxa ay ku dhaheen oo hadda adiga oo Ilyaas ah inaan ku raacna miyaad doonaysaa ilaaheenii bacla ahaana adiga dartaadii in aan uga soo tagno way beeniyeen nebi Ilyaas calayhi salaam isaguna kama uusan quusan inuu xaqa ugu dhawaaqo ilaa ay ka maqlaan waxaa la sheegaa mucjiso darteeda marka ay nebigoodii Ilyaas ahaa ay beeniyeen alle waxa uu ku imtixaanay gaajo aad u daran gaajadanise waxay ahayd mid keliya qabata dadka aanan Ilyaas rumaysnayn muslimiintii u hoggaansantay nebi Ilyaas guryahoodii barwaaqo iyo mid wax laga cuna ay dhooban yihiin ayay noqdeen halka kuwa kalena abaaro ba'an ay hayso dadka marka ay arrintani arkeen xoogaha in ay wax soo fahmaan ayay bilaabeen qaar badan ayaana sida Ilyaas calayhi salaam ku rumeeyay kadibna nebi Ilyaas waxa ay ka baryeen in ilaahay uu u baryo abaaraha inuu ka dulqaado sidii ayuuna sameeyay alle ayuu u baryay abaarihii oo dhan waa laga dulqaaday wadada xaqa ayayna bilaabeen in dadka ay ku toosnaadaan xoogaha kadibna waxa ay nebi Ilyaas ay ka dalbadeen in ilaahay uu u baryo si uu u soo saaro miraha dhulka ka baxa nooca ay doonaan maadaama kolkani dad wanaagsan oo alle rumeeyay ay ahaayeen alle ayuu u baryay nebi Ilyaas dalabkoodiina waa la siiyay marka ay barwaaqadani arkeen kibirkii iyo kaleexashada xaqa oo caanka ay ku ahaayeen reer bani Israa'iil ayay dib ugu noqdeen markaas ayaa nebi Ilyaas calayhi salaam marka uu arkay dadkani nimcada alle aanan ku shukrinin oo ku sii kibraya dhexdoodii ayuu ka soo dhaxbaxay kitaabka qur'aanka suurada saafaad alle waxa uu ku leeyahay fakadabuuhu fa innahum lamuxtaruun ilaa cibaadallaahi almuqlisiin way beeniyeen waa kuwa jahannamo lagu soo xaadirin doono kuwa wanaagsan ee raacay nebi Ilyaas kuma ay jiraan waxaa la sheegaa nebi Ilyaas calayhi salaam marka uu qoomka sidaas uga soo tagay waxa uu wadada uu ku arkay qoom meel tuulo degan qoomkaasi ayuuna bilaabay in kitaabka tawraadka ahaa uu ugu wacdiyo una u nasteexeeyo qoomkanise qoom aad u wanaagsan ayay ahaayeen durbo nebi Ilyaas way soo dhaweeyeen waxa ayna bilaabeen in kitaabka tawraadka ahaa ay ka bartaan haweeney kamida haweenkii deganaa tuulada ayaa la sheegaa in canugeedii in badan uu ka xanuunsan jiray sanado badan canugeediina waa uu caafimaadi waayey waxa ay ku samaysay iyada oo garan la ayaa Ilyaas waxa ay ku dhahday waxaan kaa doonayaa nebi allow in canugeygii aad ilaahay igu bariso Ilyaas calayhi salaamna laba rakaca ayuu tukaday in ilaahay canugaasi uu caafiyo allana waa uu u baryay kadibna canugii dadka oo dhan ayaa ka yaabay si degdeg ah ayuu caafimaaday markaas ayuu rumeeyay canugaasi Ilyaas calayhi salaam waxa uuna bilaabay inuu ka barto kitaabka tawraadka magaciisuna waxa uu u bedelay Alyasca nebi Ilyaas calayhi salaam markii uu dhintay kadib canugani Alyasca ayaa la sheegaa in reer bani Israa'iil nebi ahaan inuu alle ugu soo diray ribaayadaha qaarkoodna waxa ay sheegaan in reer bani Israa'iil nebi Ilyaas inay u hanjabeen go'aan ay ku gaareen inay dilaan balse markii uu ogaaday in ay dil rabeen magaalada oo dhan ayuu isaga baxay meel kastoo ay ka raadiyeen way waayeen waxa ayna dadka qaarkood ay dhahaan ilaa maanta Ilyaas calayhi salaam iyo qadarba waa ay nool yihiin xitaa waxa ay ku daraan biyaha zamzamka ayay cabaan balse axaadiistaasi waa kuwa daciif ah nebi Alyasca faahfaahin badan lagama hayo waxa uu ka mid yahay nebiyada kitaabka qur'aanka kariimka magacyadoodii lagu sheegay waxaana isagana loo diray reer bani Israa'iil sidii Ilyaas oo kale marka ay diideenna abaaro badan ayaa lagu imtixaanay